السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبت ayaa ahayd weelka uu bini'aadamku ku kaydiyo aqoontiisa malaayiin sanana isugu soo gudbin jiray jiilba jiilka uu ka dambeeyo. Isdhulkan qaaliga ayaa mid ay ku duugan yihiin dhaxalkii aqooneed ee awooddii hore tan iyo maantana lagu diiwaangeliyo aqoonta bini'aadamka. sidaa darteed bay astaan ugu noqdeen ilbaxnimada ummadaha. xilligadii qaranka islaamku taagnaa dunidana uu ka tarin jiray ayaa dadkii muslimiinta ahaa waxay dhiseen bulsho hodan ku ah dhanka aqoonta. bulshadaas oo ahayd mid ku hogaamisa dunida inteeda kale waxaanan ilaa maanta ka dhaansanaa dararkii ay noo buuxiyeen aqoon-yahanada muslimiinta ahi. dhaxalka maguuraanka ah ee ku dabceen adduunkana wax kaga bedeleen ayaa nasiib darro helin daryeelkii ugu mudnaa kadib burburkii awooddii muslimiinta waylah weyna ay soo gaadhay. waxaa lumay malaayiin kutub ah ay ku saamaleeyeen aqoon-yahano waaweyn oo muslimiin ahaa kuna miireen meydii aqoonta ay ilaahay siiso tanoo noqonaysa waa xalbowlaha oo ka maqan taariikhda islaamka iyo sooyaalkii ummadda muslimiinta ah ee aqooneed. dhaxalkan maguuraanka ayaa waxa aan ka haynaa hambadii baylahada iyo micadii dugaagga ka hadhay. aditaa ayaan cidna wax iska weydiinin iska daa in la goobace masjid jaamaca weyn ee ku yaala caasimada dalka yaman ee sanca xilli dib u dhis lagu sameynayey kayd weyn ay ku rasaysan yihiin kumanaan kutub ah kuwaasoo ka soo jeeda taariikh hore. xilligan dayactirka lagu sameynayay masjidka taariikhduna ku beegneyd 1972 ayaa waxaa laga helay kayd aada u ballaaran oo ka kooban kumanaan kutub oo la qoray qarniyo hore oo ku duugan masaajidka gudihiisa. kutubtaasoo ahaa kuwa kasoo jeeda qarniyaal hore ay ka mid yihiin qarnigii koowaad iyo kii labaad ee muslimiinta oo la kala qoray wakhtiyo kala duwan laga soo bilaabo qarnigii koowaad iyo kii labaad gacantana lagu qoray ayaa ahaa kuwo loo adeegsaday hargo iyo waxyaabo lamid ah qaarkoodna ay ku qoraayeen faro ay carabtu xilliga isticmaali jirtay. lama yaqaan sababtii halkan loogu xiriiriyey kutubtan miisaanka leh iyadoon ruuxna ogaanin intaasoo qarni ka bacdi, balse waxay ahayd tallaabo wanaagsan oo taariikhi ah waayo waa hanti inaga lumi lahayd oo alle ina soo celiyey markaan dayacnay kadib dadaalkii dadkeennii waaweynaa. kumanaan qoraallo ah oo lagu qoray hargo ay xilliga carabtu isticmaali jirtay iyo fartan ayaa si kelisa waxaa ola kulmay hogaamiyihii lagu magacaabi jiray ismaaciil al aqwa kaasoo xilligaas ahaa madaxii hay-adda aathaarta dalka yaman. dabadeedna wuxuu ka codsaday xukuumaddii jarmalka xilligaa ka jirtay inay ka caawiyaan dayactirka kutubtan waxayna ka ogolaadeen sanadii 1979 inay mashruucan fuliyaan. waxayna tiimkii hawshan dib u habaynta ah ka shaqaynayay ayaa sheegeen inay ka dhexheleen qoraaladan 1500 oo bug oo la sheegay inay ka mid ahaayeen nusqooyinkii ugu horreeyey ee musxafka qur-aanka kariimka kuwaasoo qayb ka ahaa qoraallo gaadhaya ilaa 400,000 oo qoraal. waxaana dib loogu soo celiyey dalka yaman iyadoo la dhigay daarta makhduudaadka ilaa iyo maantana lagu booqdo. waxay khubaradii hawshan ka shaqaynayay tilmaameen inay baadhis kadib ogaadeen inay ahaayeen qoraalada qaarkood kuwa la sameeyey xilliyo hore oo taariikhda muslimiinta ah gaar ahaan qarnigii koowaad iyo kii labaad ee hijriyada. fadlan daawade haddaad ku cusub tahay channelka subscribe oo nagu soo biir ana nagala bakhaylin inaad like noo saartay videoga.